warbixintan waxaad kala socotaa qaraaxa tube waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto sidoo kale subscribe aad dhahdo una share gareyso asxaabtaada waxayna ku saabsan tahay nin British ah kaas oo qabsatay dhacdo la yaab leh markii uu dhashay Andre Wardle oo 44 sano jir ah ayaa dhashay isagoo aan lahayn xubinta taranka tan iyo markii uu dhashay ma sameeynin wax falgal ah ama galmo ah sababtoo ah waxa uu inta badan isticmaalayay artificial waxaa si rasmi ah loogu guuleystay qaliinkii ugu dambeeyay iyadoo lagu sameeyay isbitaalka la yiraahdo University College Hospital oo ku yaala magaalada London maalintii Jimcadii waxaana si toos ah loogu sheegay inuu hadda bilaaban karo hawshiisa gaarka ah ee galmada 44 sano jirkan ayaa haysta 10 maalmood waxaana loo sheegay xaaladiisa hadda inay wanaagsan tahay oo si toos ah hawlihiisa galmada uu gudagali karo si walba dhaqaatiirtu waxay u sheegeen Andre inay waajib ku tahay inuu sugo 6 toddobaad ka hor inta uusan galmoon ama uusan la galmoon gacalisadiisa waqtiga dheer ee Fedra Fabian mar uu la hadlayay Mail Online Wardle waxa uu yiri aaday ii farxad gelinaysaa inaan hadda dhaqdhaqaajin karo xubinteedii taranka kadib qaliinka waxaan u maleynayaa in markaagi ugu horeysay aad galmo sameyso qof walba inay u tahay big deal ayuu yiri ama wax weyn qof walba ma ahan kaligeyga oo kaliya wuxuu kale ku daray 44 sano jirkan oo dhashay xubin taran la'aan in dhibaato badan uu maray sidoo kale uu ka murugoon jiray marxaladda uu ku guda jiray ani ahaan waxay ugu qaadatay wax badan inaan ka fikiro ayuu yiri dabcan hadda waxay u muuqataa inaan hore u sii socon doono Andre ayaa hadda 44 sano jir wuxuuna rajaynayaa hawlihiisa caadiga ah ee arrimaha galmada inuu hadda kadib sii wadan doono kadib qaliino badan oo lagu sameeyay ugu dambeyn mid kamid ah ayaa lagu guuleystay qaliimadaas